Asalaamu calaykum asxaabta qiimaha badan soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo halkan xogaha la xiriiro ama barashada data analyst anagoo adeegsan doona ama halkan ku sharixi doona software kala duwan sida SQL, Tableau, Power BI iyo sidoo kale R programming iyo haddii taa macquul noqoto Python oo aydan loo adeegsado in lagu analyze gareeyo datada. Marka qofkaas shaqada uu qabanayo waxay tahay inuu xogta aruuriyo, inuu ka soo saaro qaladaadka, inuu isku geeyo, mar qaarna uu sameeyo falanqeyn, kadibna xogtaas uu soo bandhigo. Natiijada kasoo baxdana waxay muhiim u tahay oo go'aan fiican ka gaari kara dadka kambaniga iska leh, taas oo faahfaahinaysa xaaladda kambanigooda ama shirkadooda. Dadka data analyst barta inta badan waxay adeegsadaan softwarada SQL, Excel oo isigana basic muhiim u ah, iyo Tableau iyo Power BI. Labadaas Tableau iyo Power BI waxaa loo isticmaalaa kaliya in lagu sameeyo dashboards ama qaab chart ah loo soo bandhigo xogta sida sawiranta halkan iga muuqanaya oo kaleeto. Sawiraantan waxay ka caawinayaan dadka kambaniyaasha iska leh inay si fudud u fahmaan xogta, sidoo kaleetana warbixin fiican ay ka helaan datada lasoo analyze gareeyay. Marka shirkadaha taas muhiim ayay u tahay, waxay ka gaaraan go'aano sax ah xogtaas ayagoo inta badan waxaa la yaabaa inay ogaadaan alaabta ugu badan ee la iibsanayo, macaamiisha ugu badan halka ay ka imaanayaan, haddii ahaato degmooyinka, haddii ahaato macaamiisha ugu iibsiga badan shirkadooda, iyo sidoo kaleeto halka shirkadooda ay daciif ka tahay xitaa way ku ogaan karaan markii la analyze gareeyo xogta kambanigooda. Hay-adaha caafimaadka sida isbitaalada oo kaleetana waxay ku ogaan karaan bukaanada ugu badan cudurrada ay ka cabanayaan oo kaleeto, si ay horumar fiican ugu sameeyaan cudurradaas ama ay sidoo kaleeto daaweyn fiican uga helaan. Sidoo kaleetana dowladaha ayadana aad ay kaga faa'iideysan karaan ayagoo qorsheynaya adeegyada bulshada. Marka faa'iidooyinka laga helayo waxay tahay hay-adaha iyo shirkadaha inay go'aankooda ay ku dhisaan si dhab ah ayagoo aanan sameyneynin wax mal awaal ah. Sidoo kaleetana waxay kordhisaa dakhliga iyo sidoo kaleeto hufnaanta shaqada. Data analyst inta badan wuxuu noqdaa laf dhabarka ama inay go'aan fiican ay ka gaaraan shirkadaha, waana waxyaabaha casriga ah ee ku horumaraan kambaniyaasha qaarkood. Asxaabay shaqada data analyst waa xirfad muhiim ah oo sidoo kaleetana mustaqbal fiican leh. Adigoo barta maadada maanta aan bilaabayn ee SQL-ka iyo qalabka kaleeto lagu falanqeeyo xogta oo ayagan aasaasiga ah, waxay awoodi doontaa inaad si fiican ula shaqeyso kambaniyaasha waaweyn, ha ahaataano bangiyada ama xitaa shirkadaha waaweyn ee caalamka. Asxaabi hadda waxaan sii gudageli doonaa inaan soo dejino softwareka SQL, waxaan tusi doonaa qaabka loogu shubanayo kombiyuutarka. Asxaabi markaan waxaa joognaa page-ka aan kasoo degsan lahayn SQL-ka. Linkan waxaa ka heli doontaan qaybta description-ka. Waxaan isoo dhigi doonaa wax walba halkaas kaga baahantaan ama xitaa xogta aan isticmaalo description-ka aad ka wada heli kartaan. Marka koowaad waxaan rabnaa inaan fiirino page-kan. Page-kan waxba ma bedelaysid, Microsoft Windows meeshan ku dooran sidiisa kaga leexan doontaa. Haddii aad u baahanta inaad bedeli kartaa, laakiinse Microsoft Windows duu ku doonaya taabanin, sidiisa ku ahaado. Waxaan rabnaa inaan kala doorno labadan qayb. Tan waxay ku xiran tahay kombiyuutarka xawaarihiisa. Kombiyuutar xoogaa iska yar daahista oo kaleeto, labaduna wax ma is dhaamaan. Waxaa soo degsan kartaa midkan 2 MB ah. Hadda aniga waxaa soo degsan doonaa midkan 437 MB ah. Waxaadna ku dhufanaysaa download. Kadib page-kan uu keeni doonaa, wuxuu ku weydiinaa inaad log in dhahdo ama inaad sign up dhahdo, laakiin labadaba uma baahnin. Kaliya waxaa dhihi karnaa thanks just start download camal. Kadib wuxuu geyn doonaa page-ka aad rabtid inaad ku dejisid, kadibna save as dhihi doontaa meesha rabto, kadibna wuu bilaaban doonaa. Kaliya ku siisanaysaa intuu download socdo, kadib markuu dhamaado si toos ah ayuu soo kici doonaa. Sidoo kaleetana page-kana ku soo furmaya markii uu soo kacmo, waxaad dooranaysaa setup type-ka aad doonaysid. Hadda developer default aniga kaga leexan doonaa. Adinkana meesha kaga diisan idin fiican. Hadda rabtaan soo dooran kartaan qaybahan kala duwan midka rabto, laakiin aniga hadda waxaan rabaa inaan kaga leexdo developer. Kadibna next ayaan sii dhihi doonaa. Kadibna meesha ku shubanaysid oo ku sii geenaa kombiyuutarka meeshaad kasoo door, laakiin hadda next sii dhihi doonaa. Yes sii kadib haddii uu ku weydiiyo aniga hore kombiyuutarka ugu jiro taas inuu weydiiyo laga yaabaa. Kadibna halkan waxaa imaanaysaa xog muhiim ah. Waxaa la yaabaa mar qaar inuu u baahan yahay check requirements. Marka liis hoos kusoo dhigi doonaa. Mar qaarna waxaa laga yaabaa inaad u baahatid Visual Studios duwan ama aad u fara badan. Marka waxaa jira linkan ku dhufa doontaa, asina wuxuu nii yaalaa description-ka Microsoft Visual C++ camal. Ayagoo badan u baahan doonta marka dowladna hadda ku dhufto kasa. Mar qaar kombiyuutarka hadduu cusub yahay ciladaas imaan karto. Marka linkan kasoo degsada waxyaabaha u baahantay oo dhan. Haddii halkan u soo laabano, anaga hadda waxba ma baahnin. Next iska dhahayna. Next marka dhahno page-kan keenaa, tan yes iska dhahayna. Hadda marka page-kan imaano, wuxuu naga rabaa intaanba ku shubano. Marka execute dhihi doonaa. Kadibna ayaga dhan process oo marsi doonaa uu ku soo deji doonaa oo ku shumayaan. oo ujeedaa marka complete ay dhan intiga lagu saaray next dhehina sidoo kale halkaana imaanayna halka marka imaano ku waxaa loo baahan yahay ina
configure aan ku sameyno serverka. Saddexdan hanaanba waan mari doonaa. Marka koowaad waxaan next dhahaynaa serverka. Halkan keenaa kadibna waxba ka bedelaysa meeshan saan iska ahaato kaliya next dheh. Sidoo kaleetana marka halkan joogto waxaa laga yaabaa inuu password waxaas oo kale ku weydiiyo. Marka qaybta kore isticmaalaynaa next aan dhahaynaa. Halkan marka la joogo oo page-kan usoo baxo qof bas noqon kartaa. Marka qaar waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo new password inaad gelisid. Hadda aniga computerkayga hore ugu jiray marka passwordkaasi gelinaa kadibna check markaa dhaho next aas idhi doonaa. Laakiin adiga waxaa laga yaabaa inaa u baahato inuu password cusub ku weydiiyo. Passwordkaas marka kaleetana aad confirm ku sameysid kadibna next aad dhihi doontaa. Processkaas ayaad mari doontaa haddii uu computerkaada ku cusub yahay inaad ku shubto SQL. Marka haddana next aan dhahno page-kana marka la imaanayo page-kan asigana next aad dhihi kartaa. Waxba ma ka bedelayno next aad dhihi doonaa. Okay, halkaan aan imaanaynaa configuration-kan loo baahan yahay ayagana isku dhahdo tigo ku wada saari doonaa. Kadib waa dhameynaba finish aan dhahaynaa. Waxaa soo gudbin haddana qaybtan kaleeto. Waxaan soo dhamaystirnay qaybta serverka. Qaybtan next adana aan dhahno. Waxba ma ka bedelayno page-kan next aan dhahaynaa ama finish aan dhahno. Kadib qaybta u dambeysa imaane asigana ma u baahnayn next aan dhahaynaa. Halka marka aan imaano passwordka dad aan soo gelinaa mar kale kadibna serverkaada sidaas ayuu kugu soo kacayaa. Check aan dhahno kadibna next aan dhihi doonaa. Halkaan imaane execute aan dhahaynaa kadibna waa dhameyne finish aan dhahno. Configuration complete waa markaan next aan dhahno. Ugu dambeyn waaba ku guuleysan inaan ku shubano kadibna uu noo bilaaban doonaa setup-ka ama uu soo furmi doonaa. Marka shellka ma u baahnin finish aas dhahaynaa. Markaan waxaa joognaa shaashada MySQL-kayga halkan ayaa kasoo socon doonaa asxaabay.